ka fogow dadka aad ku aragto dhaqamadan. Qof ka sheekeynaya ceebaha dadka, kaas oo isaguna iska dhigaya inuu yahay qof wanaagsan. Qofkuba haddii uu u fiirsado amase uu ururiyo xumaanta dadka, taa macnaheedu waxa weeye inuu isagu yahay qof xun. Si uu dadka kale u soo jiito oo uu iskaga dhigo inuu yahay qof wanaagsan, waxa uu ku dadaalaa inuu ka sheekeeyo xumaanta bini'aadanka. Qofkani kuu sheegi maayo qof noloshiisa wanaajiyay, balse waxa uu kaaga sheekeynayaa dhammaan dadkii xumeeyey noloshiisa amase isaga rabitaankiisa iyo wax ka waayay. Kan ayaa waxa uu ku tusayaa suurad ah in dhammaan dadka kale ay xun yihiin, balse uu isagu yahay qofka wanaagsan. Qofka wanaagsani sidiisaba uma fiirsado kamana sheekeeyo xumaanta dadka kale, balse isagu waxa uu ku dadaalaa inuu asturo ceebaha dadka iyo welibana waxyaabaha ay ku xun yihiin. Waxaanu kuu soo hormarinayaa kuuna sheegayaa wanaagga qofkaas uu leeyahay, wanaaggiisu haba yaraadee, balse qofka wanaagsani sidiisaba waxaa agtiisa laga helaa dad wanaagsan. Waxaanu taas daliilo ah qofka wanaagsani kuma mashquulo xumaanta dadka kale iyo fadeexadooda, balse waxa uu isku daya inuu asturo una caqli celiyo qof kasta oo xun oo la kulmay. Dhammaan dadku ma wada wanaagsana, balse waxaa jira dad wanaagsan, kuwaas oo ay dadka kale ka dhigaan una arkaan dad xun, balse shakhsi ahaan markaad isbarataan ee aad waraysato waxaad ogaanaysaa qofkii kaaga wariyey ee kaaga sheekeeyey qofkan xumaantiisa, kaas oo ka waayay dana gaar ah oo uu isagu lahaa. Haddaba ka fogow dadka dhaleecada badan, kuwaas oo dadka kale xumaantooda faafiya una gudbiya dadka kale, wanaaggoodana qariya. intaas ayaan kusoo gabagabaynaa qodobkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.